waxaa jiray canug yar oo lagu magacaabo Keenaan. waxa uu ka dhashay qoys normaal ah. Orodka hooyadii ayuu ahaa, aad ayayna u jeclayd. maalin ayay isagoo hurday ka soo tagtay, waxayna u soo baxday bannaanka si ay beerteeda u soo waraabiso. intii ay halkaas ku maqnayd, gurigii ayaa dabka qabsaday, waxayna u carartay dhankii guriga si ay canugeeda u soo badbaadiso. dadkii meesha ka agdhowaa waxa ay isu dayeen in ay celiyaan, laakiinse waa ay celin waayeen. gudaha ayay gashay, waxayna aragtay canugeedii oo dhulka yaalla oo oynaya. nasiib darro, timaheedii ayaa dab qabsaday iyo qaybo ka mid ah wejigeeda. intii ay canugeeda ka soo badbaadinaysay dabka, aad ayay ugu xumayd inta nolosheeda ka harsan, sababtoo ah mar walba waxaa ka muuqday nabar. wiilkii waa uu weynaaday, maalqabeen ayuu noqday, tuuladiina waa uu ka guuray. laakiinse dareen ahaan hooyadii aad ayuu u necbaa in uu la kulmo foolxumada wejigeeda awgeed. markii ay dadka weyddiiyaan sababta uu u necab yahay hooyadiisa, waxa uu dhihi jiray aad ayay u foolxun tahay, qoyskeennana ayada ayaa ugu foolxun. maalin ayay hooyadiisa soo gaartay, waxaa dadka uu dhahayay waa ayna niyad jabtay. waxa ay go'aansatay in ay u safarto magaalada si ay ugu sheegto wiilkeeda sababta ka dambaysa foolxumadeeda. laakiinse nasiib darro, baskii hooyada saarneyd ayaa shil galay. hooyadiina isla markii meesha ayay ku nafbaxday. wiilkii ayaa maqlay akhbaartii, waxa uuna dareemay farxad. xaafaddii ayuu u sii cararay, wuxuuna arkay dadkii oo wada murugaysan. waa uu soo dhaafay dadkii, gudaha ayuu soo galay. wuxuu si toos ah u soo abbaaray qolkii hooyadiisa, isagoo raadinaya waxyaabo muhiim ah oo ay hooyadii ka tagtay. waa uu fajacay markii uu arkay buuggii xusuus qorka hooyadiis. taariikhdu markay ahayd 5 Diseembar 1980, waxaan ku guulaystay quruxda magaalada Toronto. taariikhdu markay ahayd 4 January 1982, waxaa shil gaari ah ku geeriyooday aabbahaaga anigoo 6 bil caloosha kugu sida. taariikhdu markay ahayd 2 Julaay 1983, waxaan dab ka badbaadiyey wiilkayga aan jeclaa, laakiin nasiib darro waxaan ku waayey timahayga iyo qaybo ka mid ah wejigayga. fadlan ha cayn waalidka, ma ogid waxa ay ku hayaan, laakiin waxaad dareemaysaa markii ay kaa fogaadaan. markaasna aad ayaad u oynaysaa. dhegayste ama daawade, haddaba 2 arrin ayaa kuu furan: in aad sheekadan la wadaagto asxaabtaada iyo in aad iska inatirto waxaan oo dhan.